waxaa isweydiin leh ilmo yar oo aan guri haysan, waxbarasho haysan, caafimaad haysan, wax uu cuno haysan, daryeel waalid, dal iyo qaraaboba haysan, oo inta isku joog maryo ah loo iibiyey lagu celiyey derbigii awalba laga soo kaxeeyey. Maxay tahay waxaa lagaga farxiyey ee la sheegayo? Haddii waxaa la doonayo ay ahayd in ubadka laga farxiyo munaasiba ciida awgeed, sow may ahayn in mustaqbalkood oo dabcan ah waxa ugu warwarka badan ee haysta wax anfacaya loo qabto, oo tusaale ahaan goob waxbarasho oo bilaash ah ama goob ay u hoydaan oo daryeel fiican leh la siiyo? Muxuu tarayaa maryaha loo iibiyey ee bariba caddaanaya ama mid ka xoog weyni ka qaadayo? Mise ujeeddada laga leeyahayba ma dhaafsiisna maansha Allahda dadku soo qorayaan? Geesta Barkhad iyo mas'uuliyiinta la midka ah ma waxay isu haystaan in ay sadaqo tahay calalkan ay carruurta siinayaan? Miyaan waxa loo dirsaday ee ay meesha u joogaanba ahayn dhisida iyo qurxinta mustaqbalka ubadkan? Ma waxay ahayd in aynu weydiino sababta intaas oo ubad ah iyo inta kale ee gobollada joogaba ay u noqdeen bilaa mustaqbal ee loogu dawarayo? Mise waxay ahayd in aynu uga mahadcelino si ay tahay sadaqo maryaha yaryar ee ubad bilaa nolol ah la siiyey? Yaa leh mas'uuliyad ugu weyn ee ubadkaasi ka dhigtay derbi jiifta?